wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay xafaayada coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa warqoladiinaan kala maan annagoo isku maana maxaa loo arki waayey aryaha isku maan naga dhigaya mahmaahyaaba jirta la yidhaahdo maan dad waa mudacyo afka hore warnimay adduunyada mid yar iyo mid weyn aadmi isku maanay ma jiro laakiin maslaxad la isku raacaa jirto oo wixii ka dhaxeeya ummad bay wada ilaashataa war maxaan wada ilaalsanaa waaba kala go'onay 6 maamul goboleed aan kala nahay war ka sheegoosid meerta maasa ku mahasleel dhahaa warnimay dhageysta kala maawuligiisa oo jiray 4 nin oo kala maan ha kulantay mid waxa uu yiri ilaahu roobna si midna waxa uu yiri ilaahu roob ha keenin bukaari dadeen dabal qaaday qoyayse midna waxa uu yiri ilaahu roob ha keenin sababtoo ah sagaray dhigneen tadawri roob imaanada ee dhixme allow runtiisa kaastaan marqaati ka ahay warni hadalkayga dhaxgelay mid kalena waxa uu yiri aniga awrayga dhuntay haddoo roob imaanna raadkeedii waa baabaa ilaahu roob ha keenin arada ani waxaan idin leeyahay idinka markii kala maan noqoteen anigi iyo sagaaradin israadsanayniba kala maan noqonay xabadaad bushkum ka wada siiseen markaas intay kala fiigeen darsaalihii dalalka kala aaday ariya bushtaana sheegaysaa maanta waxay ka dhacday iskool buluusiya maanta laba shabaab la toogtay ayadoo hal toddobaad sanadkan ka baxday sanadkii hore dhamaadkiisina 3 la toogtay hadda labadii sano dawladda arbacay jirtay 5 shabaab la toogtay marka hadii la dhigi jira madaxweynuhu toogashada ma saxiixo waa beenowday waana is soo caanbaxshay oo kaali qaraxa oo abatay amal loo buubuubay waxas u joogso waayba 2 sano dhalato dhamaato ma 5 shabaab la dilay shidwa idin haysataa wallaahine maalin walba hadii shan laga dil lahaa shabaab mar hore la alhaayeen aawahe aryaadaha shabaabkaasaan ku keenay wiil shabaab aha amiirkiisu wuxuu u sheegay inuu xala ku riyooday asagoo shahiiday oo jannada dhex dabaalahaaya kadibna igaarkii shabaabka ay habartiyo inuu tago wuxuu u sheegay in amiirkiisu ugu riyooday asagoo shahiiday oo jannada dhex fadhiya waxay tiri waa fiican yahay oo cawadiya in la seexday subaxina ka kacday waxay tiri maandhahay waxaan ku riyooda adiga iyo amiirkaaga oo in shahiiday jannada dhex fadhiya kadib wiilkii in soo baxo amiirkiisa inuu yimid oo wuxuu yiri habartay waxay ku riyoota aniga iyo adiga oo in shahiidnay jannada dhex qoqotodna kadibna amiirka wuxuu yiri shaqfir oo yur habarta riyadeera wax kama jiraan waana murtadad ee dib dambayay iigu riyooninoo yiri wiilkii amugaas asna wuxuu yiri adiguna amiir dib dambaha iigu riyoonin war amiirka ilmaha jannada ugu riyoonayo asaga uma socdo miya أنا وعنينا نك شيء إبليس أنتو شارع كاني شعب كان وريرسي قرن كان شديي قرية شيش له ليبي اسمه شيش أو شيء بدنا شدديسو إله نكشاب وروح النقل جري شلكية شيش ميان نقين شرور كينا شو سوجرنا والشباب شرور مقاتان سكبادة يقول بحن ورنما ورما هيساني ما أنت كوبي اللباتن مشرح أو ترتميسا مدحوين إنما بنت اللام بارلمان كلا هذا شيء عبد الولي قاسو كمل على وحو يري بدلان شنتي سنو تكتي وحان قارسية ضرورها haddaad mar kale i doortaan dayaxaan geynaya soolna waa xoreynaya xiriirka Soomaaliyana waa jaraya oo kaali isla Soomaali ma ahmiya war wasiirkii hore arrimaha gudaha Juxa oo musharaxiinta kamid ah waxa uu yiri anigu ma hagooganiyay doorta cidna ima wadata ee doorta war kalena idin sheegi ma waad inta qaanaan buu yiri war 22 musharax oo hadashay 20 kamid waxay eedeeyeen Cabdi Wali Gaas waxayna dhahan Puntland dayax iyo daruuro midna
gaarsiina ceelu ku riday mid kastaana wuxuu yidhi dhibkuu gaarsiiyey puntland inaan anigu ka soo kaban maahane ka soo kaban mayso warnimayahow anigu musharaxiintii meesha ka hadlay nin 4 erayoo suugaana hadalkiisa ku soo koobay ayaan aad uga helay wuxuuna yidhi xishoodka ha ka tegin xildhibaan xarragada ku dhimo xildhibaan intaad ani xoortaan xoole iga raacina yaa xubeeraan ahayoo xabbad ma hees dhammow ka wadaa war madaxweyne xaafaad ducaystay wuxuu yidhi ilaahu cabdiweligaas annagoon u baahnayn adaa noo keenoo nugu karbaashay ilaahu maantaan u baahannahay noo soo celi buu yidhi war doorashada puntland talaadaa lagu beegay cabdiweligaasna waxa uu yidhi doorashadaanu arbaca dhici mayso waa mid xor ah arbaca hadday dhici lahayd arbac ayaa ku guulaysan lahayd miyuu ka wadaa aryaadhaha shala madaxweyne waara isbitaalkaysanayou booqda garoonka cisaleeya dekadda ceelmacaanna waa tegey mugga waxaan la yaabanahay kaysanay ma shabeellada dhaxay naqata mase xamaray ka tirsanaad horta arniyow shabeellada dhexe kaaraama ka bilaawadaasa war waddadii u dhaxaysa xamar iyo jawhar hadduu mari waayey oo shabaab xirtay inuu kaysanay booqda xaguukuura warnimiyo ani warsiinhaaya koonfur galbeed haddii madawiinasha muqdisho dhaha fidhi jiray kafee ku waraabaysaaslayka maamulaayi madawiinagii usubahay lafta gareena lahaay ilaa hatta waagii dhaha fidhiye meelaka dhaha hukumohaya boladun lilay garamada midowna may ereena ciidan jay beesa masiyaana kiyan dawladda arba'ayna ilaa hatta wili ma ele masaarna hujoodiyeeda hayti may hayti war beenta iska daa madaxweynaha gobolka banaadir injineer iriisow farxiye kabayar iyo xasan gantaal ayaa daynila ku calayma saaray dhuudhumashaw ila saaldheel dhabtaan ku saare yalaariirad eleengadeedii maa war guddoomiyihii degmada cabdicasiis waa tii xilka laga qaaday oranjo lagu beddelay mas-uul aana magaciisa sheegin ayaa ka cadhoodaa la yidhi xilkiina waa lagu soo celiyey guddoomiyihii degmada holwadaagne isna markii xilka laga qaaday mas-uul kalaa cadhooday isna waa lagu soo celiyey marka guddoomiye aan lahayn mas-uul u cadhoodo sidii kii yaaqshiida u baxayaa loodii la xerxerayba weli xildhibaan soo daaya ma helin war oranjo haddii cabdicasiis laga soo celiyey xamar shajabaa lagu maslaxeeyey nimayo waxaan igu cosahaa xamar weyn gadoomiye mala garoob waaye markaana lii aroosiyo war wasiirka hore arrimaha gudaha xildhibaanooda waa wuxuu yidhi galmudug masruufkii waa laga goostay khilaafka siyaasadeedna in dadka loo cunaqabateeyo maaha mashaariic badan oo bulshada wax u taraysana waa laga joojiyey marka madaxda dalka xukunta galmudug ay ka soo jeedaa mustaqbalka hadday rabaan inay xildhibaannimo looga soo doorto cunaqabataynta ha ka qaadeen war madaxweynihii gaabon waa la afgambiyey militariana waddankii la wareegay war wasiirkii gaashaandhigga ingiriiska shala hargeysa ka degey war baa ka dhashay waxaa la yidhi waayahan waddan xoog loo waxtaraannu ahayne waanagii UN-kii wakiilkii u dambeeyey waraaqdiisa u geyne wasiirkii ingiriiska ka hadlaaya waqooyi war maxaan ka qabnaa ma weydiinna safiirka mase waa nala waabsha aryaa safiir haddaan ceyrinimo wasiiraan u daahayna qandhaad qabtaa war gandhuma gabo hataa ka dagartlanka war wasiirku waa ingiriis safiirkuna ingiriis u ahaa maxay ku kala duwan yihiin waryaada dalkiina u shaqaysta waa la dilaa waana la ceebo waa la dilaa waryaad ilaahay ka cabsan jooji tag abaara tage